mar walba ahaw mid leh hami shaqo maxaa yeelay shaqadu waxay farxad gelisaa noloshaada. shaqo la'aanta baagamuntada wax xun waaye. waxaa dhici jirtay in la soo waco oo la yidhaho xaafadda waxaa loo baahan yahay cabditax waxaa soo tuurtaa nusool dhuxula soo tuur waxaa soo tuurtaa lacagtii jirgaanada biyo macaanka lagu shubi lahaa aanan haynin markaas meel aan ka keenana aanan garanaynin laakiin alxamdulilah maanta soo tuur haddii la yidhaho waa faraqa u dhexeeya shaqada iyo shaqa la'aan. saaxiibka hadduu ku dhaho niyow $1 kaar aan ka dhigtay iisoo tuur aadan hayn marka aad shaqaynaysane waxaa awooddaa inaad qof martigeliso markaas biyo qabow iyo baraf aad u keento waxaad awooddaa basraaci inaad ka bixiso laakiin wax shaqaa haddii aadan hayn maxamedow karaamo waxaan dhihi lahaa wax dad oo aad tahay ma lahan. dadnimada waxay ku jirtaa in la shaqaysto. asxaabta dhallinyarada bahda isboortiga dhallinyarado dhan waxaan ku boorin lahaa ha la shaqaysto hurdadana ha laga kaco. shaqada qofka markuu haysto hami fara badan uu leeyahay wuu ku faraxsan yahay shaqadiisa wax walba oo nafsadiisa u baahan yahay uu ku qabsan karaa. qofka markuu baagamundo yahay oo meel fadhiyane uu shaxaad ku nool yahayne dhibaatada ee leedana waa la wada arkay. marka dhalinyarada waxaan ugu baaqayaa inay shaqo raadsadaan shaqada ama ha u yaraato ama ha u badnaato inay kalsoonida ilaahay subxaanahu wa tacaala ay tala saartaan shaqana ay qabsadaan. dhalinyarada taasaan kula boorin lahaa. marka shirkadaha waxaan aniga ugu baaqayaa oo dahabshiil oo kale hormuud oo kale amal oo kale inay dhalinyarada maalgeliyaan shaqooyin siiyaan shaqana u iftiimiyaan inay garab isa siiyaan wax qabsadaan dhalinyaradan is caawiyaan. ilaahayna waxaan ka baryayaa dhalinyarada sideedoo kale inuu kor u qaado shaqo fiicanna u siiyo. qofka hadduu ku hameeyo inuu shaqaysto oo isku taxallujiyo wuu ku guulaysanayaa hami kastana wuu gaadhayaa. ugu horeyn yow markaan is iraado dhalinyarada maxaa hami shaqa u diiday waxaa ka mid hami shaqa u diiday horta dhalinyarada ayuu hami shaqa aan yeelan midda xigtana ayuuna isku dhiirigelin inay shaqa awoolaan kadib dadka ay weydiistaan in la maalgeliyo markaas ayada haddii la maalgeliyo macni maalgelin ay helaan shaqadooda u sii helaan weyn u sii yeelanayaan laana ayagu hadda maadaama aysan hami shaqa ku jirin oo aan suuq soo gelin oo meel ganacsi aan samaysanno hadda cid maalgelinaysa ama cid dhiirigelinaysa ma lahan nin walba wuxuu iska jecel jirdimaha inuu iska fadhiyo in dhalinyarada ficiisa ama dibadda wax loogu soo diro ama nin shaqayso saaxiibkiisa inay ma gacanta u tagtaan oo ma gacan horse u sameeyaan. marka waxaan aad iyo aad ugu talinayaa dhalinyarada reer Kismaayo gaar ahaan dadka aan shaqaysan ama aan hami shaqo ku jirin inay hami shaqo yeeshaan oo is dhiirigeliyaan shaqo awoolaan in ku dhiirigelin lahaa. gunaanudka hadalkayga mar kasta ahaw nin jecel naftiisa oo noqo qof ku dhiirigeliya nafta in ay shaqaysato maxaa yeelay maahmaah Soomaaliyeed ayaa waxa ay odhanaysaa nin aanan shaqaysan shaah waa ka xaraan.